aysan gaarin gacanta xogaa uu diirka ka kacay laba wiil oo kale oo la socotayna dhaawac yaryar uu gaaray laakiin Allah u naxariistay gabadhu ay mataqaanaa ay dhimatay oo ay ku geeriyootay wararka inta badan la isla dhaxmaray hadda sheegay in labada fanaan ay wada socdeen Sharmaarke iyo Maslax ma ahan warar saxa Maslax magaaladu joogay Garowe iyo dhalinyarada kale ee Sharma la socotay laakiin waxa uu raacay dhalinyaradaas gabadhu ay ka mid ahayd Ilaahay u naxariisto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي القالقة وإذن سلام دمانتين ميل والبعدون كاكجوكتين وولاشين حبي channel كايقدا ونسنا حبي لايف ستايل هدا هوري إلي جوكت السودو قعمو فرنيت سافي كسودو هدا إيو عصبتين السودو برضو أحبكم كثير كمان كلكم يعني عارفة عادي هذا إذن جعلها ما شاء الله تبارك الله أصحابتي القالقة جمعة وناكسن جمعة مبارك ما أنت جمعين واحد الحمد لله شكرا إلهي جمعة جمعوين بدن إلهي عافو ماد إمبرهن وقارسيو قفكي ما أنت جوغ بري مجوغ أصحابي عدونك أصحاب السفر لقي هاي والا ودا سعودة قف جوغ هاي مالي مرك إنتان جوغ إلهي خاتم مدى هنقسمو إن شاء الله ساعة دينا ساعة خير قبت وقتي أنا ديري قاري مالن كار قبت إلهي نوغديو صحون إلهي من وجود أصحابي إن شاء الله بالله كريم دمانتنا أنت مسلمين فيديو جاي ما تحوك سابسينات بعد السلام مركا إذا لها جمعة مبارك وأنا إذن سلامه وعلى سوقتين سوشيال ميديا لبدا نبير واحد لحصعدي شرم بوي داهر على سو وحاسة هاد كسر دماني هذا كل داهر على سو شرم بوي هاد إيجو حاركايو عطو صوت دوبي إيجاركي ودهاي وكارا لجلنا كل wixii qalad ah galay asiga og aniga ma ku dambaabi karna ma dhahay ani walaashiya dhashay dhinacay ii galay aakhir masa ani waa daafac horta qabiilna wax ma ku daafacani asxaabe Soomaali waaye muslimiin waaye Soomaali kalima qof muslime aab walaalka ma fahanteen kullu muslim akhwa waaye marka muslimiinta dhan walaalo waaye maadaama anaga Soomaali hadaanahay wax walba aan qabiil aan ka dhigna qabiil subhanallah heblowa ana laan dheer waxaas waa laga fiican yahay waxaan adduun waa laga tagayaa ala kulli hal si kasta ay ahaataba ninka li dhahaye daahir cali soo wuxuu dhahay Sharmaarke asoo wada hadlayna arkay hadda dhow wallahi 8 saac amal markay ahayd arkay asoo dhahay waa ka raali gelina Sharmaarke ma sha Allah tabaaraka Allah ninka qofka bini aadamka horta hadii oo awood lagu sheegto ama adi wax adi aan leedahay laga xoog laga qaato waa ku qasbantaa inaad tanasushid si adi horumar u gaartid si adi u dadaashid adi meelsha higsanaysid inta gaartid marka wiilkan wiil daayar waay wiil 20 jir waay cunug hadda soo baxay waay in la gacan qabto oo la dhiirigeliyo oo maxaa la dhahay mar walba la caawiyo way fiican tahay maadaama daahir ali soo dhalinyaro badan uu caawiye marka waxaan dareemayaa inuu asi adu qofka horta hadii caawina ilaa dirtisa loo caawiya laakiin ma aha ina ani isoo raac ama warkayga maqal ani saasa u fahmay kulay wax si kastaba ha ahaatay ani hadda waa ka gudbay ayaga dhaxdooda wixii dhaxmaray eega ilaahan baa og awood in loo sheegtay ma fiicna qofka bini aadamka hadda adi awood ka sareysid ama adi ka xoog badan tahay ama maxaa la dhahay meel adi ka haysatidna in looga bootay ma aha kulay hadda way dhamaatay Sharmaarke waxa arkay oo dhahay sorry waa ka raali gelina wax saas amal soo dhahay marka alxamdulillah meesha ku dhamaatay sheekadaas labadaas bari wax la wadwadabo way dhamaatay hadda iyo wadan marka hadda dhow markii adi 9 saac waxa arkay telefonkan adi sasa ugu dhiganaay mo 24 saac marka ilaahay naga madooweeyay kan fisni waay gaalada noo soo sameys anoo saan u hay waxa arkay Sharmaarke oo shila galay Sharma boy wuu dhintay saas soo la dhahay ma fahanteen marka Sharmaarke ma dhiman horta qadar rabbi way wax kasta way qoranyin asxaabe marka waxaan idin leeyahay maadaama shil uu dhacay adduunka wax kasta waa la filinaa qofka haduu oo bini aadam aniga maanta bari inaan gaarin in kale horta waxa la dhahay salaas waxaad kutid inaad duhurka gaaraysid in kale ma ogid duhur hadaad ku inaad casr gaaraysid in kale ma ogid marka ilaahay qaatamada hanoo sameeyo cimri dheer iwaasum ilaahana siiyo nin walbana sababtiisa iyo meesha ku dhiman lahayn horta waa la geynaa sida aan hadda aan arkay Sharmaarke walaalkiisa oo la wareysanayo aan dhageystay maxaa la dhahay wuxuu sheegay in Sharmaarke uu fiican yahay laakiin social media waa dhintay waa geeriyooday shil ku dhintay naxdin aan naftirkay xooga u nahay wallahi been idin sheegay ani wiilkayga waay maxaa la dhahay wiilkaas habra ahay
walaashay macaana dhashay been idin sheega laakiinse dhimashadiis markii la soo sheego wallahi waan ka naxay ma fahanteen labadan bir waxa la isku haysto horta caadi dad social media isku dhex jiro social media mar hadaa soo barnaamij sharci khair wax walba arkay laakiin taasaab ii ficneed markii la dhaw waa dhinta wallahi waan naxay si xuna oo naxay been sheegay marka alxamdulillah shukla markii dambe markii la dhaw nool yahay kulli alxamdulillah qofkiisa dhimasho la rabo ma jirto asxaabi ma fahanteen dadka dhan inay iska noolaadaan qofkaaga uu ku noolaado waa iska rabnaa laakiin ma dhacayso taas waa la dhimanayaa waqtiga haddii gaar laakiin hadda waan ka naxay saraaxa been sheegay insha Allah عمر طويل أو رجينا ياركي أنت مسلمين أو جاري لسارنا ما دام حد الشيء جبرا جيريو تالدا جبرا ريمتي وحال لنا جبرا سولاشن إنا لله وإنا إليه راجعون كل وقت جادا مشك سو كاي وحان أتعسيننا فمركي أهلك أصحابتي قرابة إيك جيريو وحان ليه هاي سمر إيما إله إذن كسيو وليش عم مشكو داو عمنا شر مركز لشهادو مقارك قربك حوجا وحكمي يعني كل meeshaan fiiqantay sida la sheegayo marka alxamdulillah shukla wiilasha kan dhaawac yar waaye gabadhaas kaliya hadda geerideeda la soo sheegay walaalkiisa markuu la hadlay warkana ma ku badinin kullee qof oo naxsan oo argagaxay waayo marka ilaahay qafur raxiimka waxaan ka baryaynaa qofkii dhintin ilaaha u naxariisto gabadhan walaashan ilaaha u naxariisto maalintii horta adduunkan kuna dhalato kuna dhimato kuna aroos gasho adduunka xaalkiisa saskeen aragtay اليوم عسل يوم بس maalin farxad waaye maalinna naxdin waaye marka ilaahay qafur raxiimka waxaan ka rajaynaynaa inuu qaatamada noo hagaajiyo maxaa la dhahay fiidiyowgay wax kale ma aha fiidiyowgan hadda aan dhageystay naxdintii aan nahay aas dhahay gabadhan walaasheena maadaama kulul muslim akhwa la dhahay muslimiinta ay walaaliin qaasatan gabar Soomaaliyeed waa gabar walaasheena waaye familkii ahalkeedana samar iyo ma ilaaha ka siiyo waqtigeeda meesha ku soo qornaaye geeridaas naxdinta ilaa hadda la soo sheegay aad iyo aad ugu naxay aniga taas sawirka isku jira ilaa xalay aan arkay gabadhaas waa gabadha dhimataal dhooya marka waxaan leenahay ilaaha u naxariista asxaabe social media waxaa noqday baryahan isqabqabsi isjiid qabiil asxaabe qabiil wax ma taraayo ama Soomaaliye aniga Soomaali hadaan nahay hal qof wax laga sheegaa 100 qof u soo danaaninaysa qabiilka maxaa la dhahay la tacaaruf oo dhahay ilaahay quraankiisa inaa isku barno moogiye inaa isku caayna ma aha Soomaali hadaan nahay qabiilka aad ugu dambeeyna qabiil goormee laga tagay zaman asxaabe ma fiicna qabiil inaa isku raadsano ma fiicna qabiil inaa isku dafaacno marka Soomaali weyn meel walba ay ka imaad Soomaali waa Soomaali walaalo waa muslimiin waaye ha ahaada hawiye ha ahaada daarood ha ahaada raxween meel walba ka imaada ani horta meel aan u leexanay ma jirto because meel walba ku dhex jira ma fahanteen meel kasta waa ku jira ani hawiye waa ila dhashteen habrira u ahay eeda u ahay mijartaan waa ila dhashteen meel walba mijartaan habrir waa u ahay eeda waa u ahay wax walba ma sha Allah tabarakallah ani hawiye daarood iyo raxween dhaxda ugu jira marka iyadoo sas ay tahay inaa isku ayna ma aha qabiil asxaabe ma fahanteen waxa idin leeyahay qabiilka weynaada qabiil iska dhaafa wax ma taraayo islaamnimo walaalnimo social media hadii lagu jiro si sharaf iyo nidaam ah inaa u joognaa noo fiican in la isqabqabsada la iscaaya qabiil isku taageer horta ma fiicno laakiin maxaa dhahay marmar dhiiga ku qaadayo been ma sheegay dhiig waa jira laakiin waxa fiican marka hadlaysidna si nidaam iyo sharaf in loo hadlo caayitin iyo aflagaadi iyo qof waxa arkay waalidkiisa loo gafaayaydiisa awoobihiisa hooyadiisa macaan wax walba sas laga dhigay alashan ish alashan hada lagabak hada aquya hadi ukhti hadi qabiilkayga waay kan qabiilkayga waay waxaas ma jiraan just waxa fiican in oo hada qofka hada aynaysid hada caayitin inkastoo ay fiicnaan waxa fiican shakhsigaas kali ku dhiganta ina wax ka sheegtid ma aha ina waalidiintii awaad faariidi dhintay ama waalidiin ayay oo dhintay in meesha la soo saaro ama caaytintooda meesha la keeno ma fiicno walaalahayga aan jeclay video inaan ku dheeraadan marabi waxaa jeclaystay inaan hadda videoga marka arkaa xoogaa isku nahay inaan wiilkayga horta caafimaad imir dheer inaan siiyo asi inta kale la socoto oo dhaawaca boogtiin ilaahay idin dhayo gabadha geeriyood ilaaha u naxariisto waxaan leeyahay sharma jir oo joog habar macaan cadowgaaga agta hoosteeda ilaahay waxaan kuma tuso insha Allah billahi kariim dadka waxay idin leeyahay Soomaali waa hal Soomaali maxaa loo dhahay Soomaali maadaama Soomaalida Soomaali hal leh waa Soomaali ma kala baxsano
iska dhaaf qabiilkana mar labaad mar saddexaad qabiil waxaan idin sheegayo insha allah billahi kariim fiideogana waa ku dheeraaday ana tirkay meela u socda hadda wallaahi waxaas dhahay maadaama gabar walaasha Soomaaliyeed ay dhimatay fiideodan hadda soo dhaceen anin wiilka aan ka nahay habarta ahay iyo inta la socota gaariga ay saarneed marka waxaan leeyahay ilaahay idin boogdhayo ilaahay idin caafiyo haddaa igu cusub tahay fiideoga marka ugu horeysa aa aragtid subscribe-ka ii saar channelka ii share garay fiideoga haddaa ka heshid like-tana naga dhisa asxaabe comment qurux badan insha allah billahi kariim labadan bir shalay iyo daraad wax ma soo gelina u malayna adduunka inta lama ku koobna social media le maaha hoola kalena sugaay ilmaha nagu xariira guri barnaamijyo badanaa iska jira marka 2 bir 3 bir haddii wax lasoo dhigana iska soo qulqulle idinka ha ka joogsanin meesha ma fahanteen ani waa idin joogaa waa idin fiicnaa alxamdulilah shukrullah asxaabteyda qaaliga dhammaantiin intaa ku jirtiin inta xanuunsan ilaaha caafiyo inta caafimaad qabta ilaah u ziyaadiyo inta geeriyootin ilaah u naxariisto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu subscribe share like comment dhankaaga waa insha allah